بسم الله الرحمن الرحيم. ميزانية لبدا كون إلى 20 كمركة كحكومة أهان وحكو سفيسن هيكسيga iyo horumarka dalka ugu horeyntii waxa askari walba oo ciidamada qalabka sida aad maqasheen loo kordhiyay $70 taasoo qoondadiisa ka dhigaysa $100 oo mushaar ah 30 raashin iyo 70 loo kordhiyay 200 iyo 30 raashinka loogu sameeyo xerooyinka iyo deegaanka waa bilow fiican laakiin waxay naga astaahilaan nuguna leeyihiin intaas ka badan taasoo macnaheedu yahay marka waxaan u soo jeesanay inaan ciidankeena kadib shaqadii dheereed ee dib u habeynta inaan tayadooda dhaqaale wax ka qabanno waa sanadkii ugu horeeyay waa bilow waana la sii wadi doonaa waxa kale oo miisaaniyadda kaliya ay wax ku kordhisay arrimaha waxbarashada arrimaha caafimaadka iyo arrimaha dib u dhiska dalka oo kaliya dhammaan xafiisyada dawladda oo soo codsaday in la kordhiyo kharashaadkooda ugu horeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha kan madaxweynaha kuwa guddoonka baarlamaanka wasaarad walba hay'adaha dawladda kulligood hal shilin looguma kordhin inta aan ka ahayn inta aan hore u soo sheegay miisaaniyadda sidaas daraadeed waxay tilmaamaysaa dawlad ahmiyadeedu ay tahay ammaano iyo adeeg marka miisaaniyaddan waxaan ku tilmaamaynaa in hadafka 2020 dalka ay u jiheynayso wax la yiraahdo ammaano iyo adeeg waxaan rabaa golahayga wasiirada inaan uga mahad celiyo shaqada xooggan oo ay dalkan u soo qabteen haddii marka dadka qaar aanay aaminsanayn shaqada aad dalkan u soo qabateen marka aad wadanka imaanayseen 168 milyan ay ahayd miisaaniyadda ugu timaadaan maanta waxaad ansixiseen 460 milyan oo dollar number sax boqolkiiba 174 in ka badan ayay kor u kacday oo macnaheedu waxay tahay ma aysan timaadeen shaqadaas hadaad idinku qabanina العليس مركب أنت ودن كأج جوكتين إنك بدن تدبات مليون أيا سنة والبكرة كعيسي والسنة كحد أقدم بي وها سنة كي حق أو بدن أو جلي أو أتكردسين بقول إلى 20 مليون أو دولار دخلها سوق جلي دولة دوانا كومات سنتي هدي مركب شقدا عن ودنا عن سي ودنا وفبراير دلك الدين تلقى عفيو ماشى عن كثرين إنه ما أذا إيه ملايين waxaan soo gaarsiinaynaa dalka in loo bedelo ba iyo billions hadii ilaahay yiraahdo waana maadsantahay وهذا waxaan filayaa kulay rajadu inay isbedeshay oo markii hore miisaaniyadda sanad walba ama dhaqaalaha maad xagga ciidamada ugu aad hooseeyay hadeerna ay soo muuqato rajo ah in wax loogu daray oo mushaarkoodii loo dhameystiray macuntadii maca wax la mid ah inkastoo sida hadalka u dhigay ay istaahilaan inta ay inka badan marka maadaama hadda $230 ay tahay mushaarka qofka askariga ah ee dalka Soomaaliya ciidamada difaaca iyo guud ahaan ciidamada oo dhanba waxaan filayaa inay rajo meesha ka muuqato Xasan Cali Khayre hadii uu lacag isku soo sharaxo madaxweynaha qaranka doorashada hadda dhici doonta hadii aan la idmo 2021 iyo wixii ka dambeeya ama madaxweyne farmaajo markii la bedelo kadib haduu musharax madaxweyne uu dib u noqdo waxa suurtagal ah in loo dooran doono madaxtinimada dalka sababtoo ah ka fikiritaanka ciidamadu waa arrin muhiim ah oo maaragtay loo baahan yahay waayo madaniga muwaadinka ah ee xilkas ka saaray inuu dalkiisa iyo dantiisa iyo diintiisa difaaco arrin sahlan ma aha waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fi amaan illah ونقول في التنبؤ حساب